wasiirada wasiir ku-xigeenada agaasimayaasha iyo martida kaleba dhammaantiin inkasta waxaan ku salaamayaa mansabkiisa iyo magaciisa si lamid ah waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ilaahay subxaana wa tacaala noo suuro geliyey caawa inaan kulankan lagu soo bandhigayo hal abuurada ganacsi iyo fikradaha anoo ku hadlaya magaca shirkadda korontada Beko oo ka mid ah runtii dadka suuro geliyey ama taabageliyayaasha ka ahaa shirkan inuu qabsoomo qayb weyn ku ahaa waxaan ku faraxsanahay in runtii uu dhaco shirarkan oo kale iyo shirar la mid ah waana soo dhaweynaynaa waxayna shirkaddu mar walba diyaar u tahay inay garab istaagto horumarada iyo runtii aragtiyada horumarineed ee si guud dalkeena uga socda shirkadda Beko oo aan caawa magaceeda meesha ku taaganahay ayaan rabaa maxay hal abuurka uga qayb qaadatay Beko maxay ku soo kordhisay dalka Beko haddaan idin baro waxaa la aasaasay 2014 korontadu markaa qiimaheedu dalka wuxuu ka ahaa $1.30 ayuu eriyadaas u ahaa waxaa la mideeyay shirkado badan oo koronto ka shida magaalada Muqdisho oo meelo kala duwan matooro u yaalaan nidaam koronto iyo system midna aan lahayn markii la mideeyay ee la isu geeyay waxaa la arooriyay la mideeyay xoogii iyo xoolihii iyo maskaxdii intiiba markii la mideeyay waxaa soo baxay in la fikiro hal abuur la keeno muxuu noqday hal abuurkaasi marka hal abuurkii la isu keenay wuxuu noqday in la yiraahdo sidee u raqiisinaa korontadii see halkee mari karnaa ma gaari karno wadamada korontada ka dhaliya badda windiga iyo solarka noogu fududaaday solar ay shirkaddu u dhaqaaqday qoraxdan ilaahayna siiyey nacamka ilaahay ka mid ah ee ummaduhu aysan wada haysan ayaa loo fikiray solar la sameeyey tijaabooyin badan dhib tiro badanaa naga soo maray maadaama ay cusbay dalka oo dhan ku cusbay alxamdulillaah caawiyada noo daaran markii solarkii kacay waxaa la yiri fikir guuleystay ayuu noqday shidaal dhaqaale ku bixi jiray Asia iyo Carab aadi jiray oo shidaal loo bixin jiray baa baaqday shirkaddu kaligeed ma qaadan lacagtii waxay dib ugu soo celisay macaamiisha waxay raqiisisay qiimihii bay hoos u dhigtay targetka ugu weyn ee la leeyahayna wuxuu ahaa in energy raqiisa la helo waan ognahay qiimuhu inuu wali qaali ku yahay macaamiisha oo aad dareemaysaan inuu qaali yahay welina aanan gaarin meeshii aanu rabnay inaan korontada dalka gaarsiino laakiin waxaan rabnaa macaamiisheenu iyo dadka Soomaaliyeed oo dhanba inay horta bal dib u xasuustaan 6-7 years ka hor korontadu imise yahay halkee joognay maanta halkee maraynaa halkee u soconaa iyo shirkaddu inta ay jirto inta qof waliba bal calculator ha qaato ha kala jaro qiimuhuna maanta waa imise waxaan rabnaa haddii ilaahay yiraahdo qiimaha sida uu yahay ku dayn mayno waa raqiisanaynaa haddii ilaahay yiraahdo barwaaqooyin badan baa shirkaddu soo wada iyo hal abuuro insha Allah mar walba shirkadda Beko waxay la garab taagan tahay fikir dhaqaale aragti qof kasta oo hal abuur wada hal abuur kasta oo la sameeyana wuxuu u baahan yahay ilays koronto annagana idin ballan qaadayna isagoo raqiisa la isku halayn karo joogtana noqonaya insha Allah taala